tartan kubadda cagta oo lagu magac daray tartanka dib u soo noolaynta kubadda cagta ee Gabiley ayaa maanta si rasmi ah lagu qabtay gobolka Gabiley. Tartankaasi oo goobjoog ka ahaayeen barasaab ku-xigeenka gobolkani Gabiley Ali Cabdi Cabdilaahi Ali Casi, xogayaha fulinta dowladda hoose Cabdiraxmaan Nuur Abakor iyo waliba Cabdi Maxamuud oo qurbajoogta maalgelisay tartankan lagu qabtay gobolka Gabiley. Xasan Waraaba oo kamid ah guddiga isboortiga Somaliland iyo waliba ciyaartooyada kala duwan ee ciyaaraya tartankaasi maanta la soo gabagabay ayaa waxay guushu raacday kooxda kubadda cagta Niil oo la ciyaaraysa kooxda gaashaan ee ciidanka qaranka Somaliland. ciyaartaasoo ku dhamaatay 2 gool iyo 1, taasoo guushu raacday kooxda kubadda cagta Niil oo ah kooxaha ugu horeeya gulubada koowaad ee gobolka Gabiley. munaasabad ballaaran oo abaalmarin lagu guddoonsiinayay ciyaaryahanadii kala duwan ee ka qayb qaadanayay tartankaasi lagu magac daray dib u soo noolaynta ciyaaraha kubadda cagta ee gobolka Gabiley ayaa lagu qabtay hotel askar ee magaalada Gabiley. tartankaas oo ay ka hadleen ciyaartooyada kala duwan isku duwaha ciyaaraha kubadda cagta ee Gabiley Cabdo Mahdi iyo waliba Mixidiin oo ah gudoomiyaha ciyaaraha ee kubadda cagta ee Gabiley, kuwaasoo mahadnaq ballaaran u soo jeediyay qurbajooga reer Somaliland ee isagu maalgeliyay tartankan ciyaaraha isla markaasina qalab ciyaareedka u keenay ciyaaryahanada reer Gabiley. Cabdi Maxamuud oo qurbajoogta reer Gabiley isla markaasina qurbajooga maalgeliyo tartankan iyo waliba deeqdani oo isna halkaasi ka hadlaya u mahadceliyay ciyaaryahanada kubadda cagta ee reer Gabiley sida ay u muujiyaan firfircoonida iyo dareenka shacbinimo ee lagu ciyaaro ciyaaraha Somaliland. kubadda la ciyaarayo oo aan daawado farxad weyn baa aniga maanta ii tahay inaan daawado dhalinyarada Gabiley oo intii aan ka maqnaa dhashay qaara iyagoo yaran ka tagay inaan daawado kubaddooda oo si wanaagsan oo hufan oo nadiif ah u wada ciyaara. ciyaartaas waxay ciyaar final ah. Xasan Waraaba oo guddiga isboortiga Somaliland ayaa isaguna sidoo kale mahadnaq ballaaran ka soo jeediyay halkaasi. xogayaha fulinta dowladda hoose Cabdiraxmaan Nuur Abakor isna halkaasi ka hadlay ayaa dowladda hoose sheegay inay ka qayb qaataan adeegyada isboortiska ee gobolkaasi Gabiley. gabagabadiina waxaa munaasabadaasi soo xilay barasaab ku-xigeenka gobolka Gabiley Ali Cabdi Cabdilaahi Ali Casi oo sheegay inay ka maamulaan diyaar u yihiin ka qayb qaadashada ciyaaraha kubadda cagta ee gobolka Gabiley. gabagabadiina waxaa halkaasi abaalmarinno kala duwan lagu guddoonsiiyey ciyaaryahanadii kala duwan ee ka qayb qaadanaya tartan ciyaareedkaasi iyo waliba kooxda Niil oo ah kooxdii hoggaanka u qabatay kooxaha da'yarta ee gobolka Gabiley, iyadoo sidoo kalena abaalmarinta lamida la siiyey kooxihii kale ee kala duwan ee ka qayb qaadanaya ciyaarahaasi sida gaashaan iyo waliba kooxo kale oo iyagu ka ciyaarayay kubadda cagta ee ka socday gobolka Gabiley garoonka kubadda cagta. Nimcaan Dawud Ibrahim, Harwanaag News, gobolka Gabiley.